xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo diin mas'uuliyiin ka socotay dalladaha waxbarashada dalka waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ujeedkeeda waxa uu ahaa shahaado guddoonsiinta dufcadii labaad ee ka qalin jibisay dugsiga hoose dhexe sare ee Iftiin iyo dhiirigelinta ardadii kaalimaha hore ka galay sanad dugsiyeedkii aan sagootinay ee 2014-2015 munaasabada ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay maamula ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe sare ee Iftiin mudane Saacid Maxamed Yuusuf waxa uu ku dheeraaday waxqabadka dugsiga Iftiin tan iyo markii dhidibada loo taagay sidoo kale goobta waxa ka hadlay mas'uul ka socday dallada waxbarashada ahliga ah ee SAG waxa uu tilmaamay in waalidiintu ay isgarab taagaan maamulka iyo macallimiinta si ardada ay horumar u gaaraan Sheekh Maxamuud aw Cabdulla Cariif oo isaguna guddoonsiinayay shahaadooyinka ardadii ka qalin jibisay dugsiga hoose dhexe sare ee Iftiin ayaa dhankiisa boogaadiyay ardadii qalin jibisay iyo waalidiintii madasha ka soo qayb gashay ugu dambeyntii xafladda waxa soo gunaanuday Ustaad Cumar Macallin Cabdisamad oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Iftiin isagoo hoosta ka xariiqay in dhiirigelinta ay u sameynayaan ardada kaalimaha hore ka gashay dugsiga hoose dhexe sare ee Iftiin ee deegaanka ceelasha biyaha sanad walba ay si laba jibaari doonaan ardayda gashay kaalinta koowaad labaad saddexaad fasal walba waxaan umeynayaa kama gaarno inaan bixinno laakiin waxaan ku bixin doonaa haddii ilaahay dhow taabuurka maalinta aan ugu horeysa aan iskoolka imaanayno subaxnimo taabuurka aan geli doono ayaan ku bixinaynaa waa in lagama gaaro fasalka koowaad ilaa fasalka ugu dambeeyo inaan halkaan haddaan ku bixin marka ayaa gaaray waxaan kaas ku darayaa waa mahadsantihiin waalidka iyo ardayda si wanaagsan u soo qayb gasheen xafladii looga xiran tahay Xasan Kaahiye telefishinka caalamiga ah ee Somali News deegaanka ceelasha biyaha